jaaliyada Soomaalida magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika ayaa soo dhaweysay doorashadii ka dhacday magaalada Muqdisho ee gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya loogu doortay Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. xafladan ay soo qaban qaabiyeen guddiga qaban qaabada furitaanka safaaradda Soomaaliya ee dalkani Koonfur Afrika oo lagu qabtay hotelka caalamiga ee Noora International magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika ayaa waxa ka soo qayb galay dhammaan qaybaha kala duwan ee jaaliyada Soomaalida ku dhaqan magaalada Johannesburg iyo nawaaxigeeda iyagoo dhammaan u hambaliyay gudoomiyaha cusub ee loo doortay baarlamaanka dalka Soomaaliya. xafladani waxay ahayd inaan ugu hambaliyayno mudane محمد شيخ عثمان جواري والله دورتي قدوميها أما فيانك برلوان كصوماليات ودوان لدورت الدان الصومالي ذنا وعن لنا هي أم تاجرن سيدي أقول مورالي عن كارسين وريانا قبلك إسكتشبي وريانا بوديو كإسكوي ورنو ولا waxa uu diidayo waa inuu yaqaan waxa uu taageerayana waa inuu yaqaan waxaan wadanka ka rajeynaa jawaahirina aan u sheegay roob dheer dhibaato badan in dadka Soomaaliyeed soo mareen walina marayaan meel walba oo adduunka jooga dacaladeeda inay ku dhibaataysan yihiin in loo aqoonsan yahay ummadda Soomaaliyeed inay yihiin dad mataqaana qaxooti hambalyo khaas ah waxaan u direynaa gudoomiyaha محمد شيخ عثمان جواري iyo baarlamaanka cusub waxa muddo maanta in Soomaali ay bislaatay oo ay raadinayso dawlad daacad marba hadii Jawaari muxuu ahay la doortay. intaas kadib ayaa waxa qadka taleefanka uga qayb galay munaasabadani lagu soo dhaweynay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya danjiraha dawladda Soomaaliya ay dhawaan u soo magacaawday dalkani Koonfur Afrika mudane Sayid Xasan Shariif isagoona u hambaliyay gudoomiyaha baarlamaanka Professor Jawaari iyo ku xigeenadiisa. Soomaali baarlamaankeeda uu yeeshay oo ah guddoon aad iyo aad karti u leh oo aan shakhsiyan u qaado gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. si kastaba ha ahaatee doorashada gudoomiyahan cusub ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa waxa soo dhaweeyay dawlado ururo caalami ah qaramada midoobay iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. عبد الناصر صوماني تلفزيون عالمي Universal TV Johannesburg.